sagaashan milyan oo qof ayay u soo dhacday 1400 waxayna ugu soo dhacday direct deposit bankigooda 150 oo qofna waxay ugu soo dhacday check guriga laakiin in ka badan 150 milyan oo Mareykan ah ayaan wali helin lacagtan $1400 dadkaas oo aniga ku jiro haddaba maxay ku dhacday inaanan wali lacagtan in ka badan 150 milyan qof aanan wali helin waxaan idin kaga wada akhbaar balse inta idin galin meel walba joogtaan waa salaamantihiin fadlan subscribe garee channelka YouTube fikirkaaga ka dhiibo saaxiibada la wadaag una lana share garee saaxiibada iyo familkaaga ee ku jiro baraha bulshada Facebook iyo YouTube aan ku soo laabtay qodobkayga IRS ayaa sheegtay asbuucii hadda ahayd in ay 9 milyan oo qof direct deposit lacagta ugu diray 1400 150 kun oo qofna check ay u jareen balse ملايين مريكان إن أنا سوي لكم أفرت بقولوسين سوى لا حريرة إن شقاريرة أجرته processing كان وقت يرقاتي ما دام حلقي عن شورته علنته يستمر شيء يسكسو آذن وقت بدلنا إيسن أهلين ما دام شقار الآن هيسو وحيش شغال لك أسبوع عنو بري سنين تكبل أبنيو إن هذا دايركت ديبوزيت بدل العقد قصة تريد دونان إيو جري دونان check جرين شجع ماتش 15 إن دتك وصين دونان وحنفلها دت كان هلين ويرام بقول مليون كبدن وأنا عن كجرو إن أسبوعا بريكل بلاون السمن ده أنا هلا إن شاء الله هدو عليه رهدو دتك هلي بس كفاية ديستي وتوقدي هره هلي وحنلاقي هاي لعكته سفي عنه استعماله هدين أولي already أين عندمين IRS ده قالوا حاجة شكتي إن extension قدرتي حلقي عشور علينتا 2020 كدكتي May 17 waxaa lagu daray bil April 15 ayuu dhici lahaa May 17 ayaa laga dhigay soo canshuurta xareenta 2020 waxa ugu dambeysay May 17 sidoo kale IRS waxay sheegtay in 12 milyan oo qof aysan wali lacagtii 2020 canshuur celintii xareeyeen la siinin refund-kooda sabab la xiriiro in shaqaale la'aan ayadana jirto wali loo jarin ee dhahan dulqaata refund-kiina waa helaysiin processing wali idin kuma sobrin soo hadaadan wali herin lacagtaas oo refund-ka ah IRS waxaad booqataa irs.gov waxaa ka arkaysaa akhbaarta waxay kugu jirtaa social information gali wali lacagta hadii la process garan sidoo kale hadii aad sugaysid sideedoo kale aan wali 1400 herin waxaad booqataa IRS tool ayaa jira u suubiyan laha get my payment status akhbaartaada gali socialkaaga iyo gurigaad degan tahay iyo dheerabaadkaaga gali waxaad arkaysaa xilliga lacagta ku soo dhacayso ama hadaysan processing la suubin waxa ku jiro akhbaar kuma heeno balse dulqaadka ugu dambeyntii paycheck protection program barnaamijkii caanka ah small business ka ahayd oo loogu talagalay ama small business ka ama self employed independent contractor ama ka shaqeeya daycare home health care muqaaxi truck driver taxi uber hadaa tahay waxa tahay small business looma baahna magac inaad suubisid $100 bilyan ayaa taala accountiga treasuryga waxayna sheegeen lacagta in dad small business dadka loogu talagalay aysan wali claim garenin haddaba hadii aad buuxiso iskaajosi 1099 aad tahay xilliga canshuurta la xareeyay 1040 markaad buuxisid iskaajosigaaga ayaa lagu xisaabinayaa grosska lacagta ku qoran number 1 ama number 7 grosskaagaas ayaa loo qaybinayaa 12 2.5 lagu dhufanayaa lacagtaas ayaana xaq u leedahay fadlan balaayin dollar ayaa taalo Congress-ka asbuucii la soo dhaafay wuu ansixiyay extension ayuu ku daray March 31 kan ayuu dhici lahaa waxayna sheegeen inay ka dhigayaan May 31 bisha shanaad koodida aqalka sare ayaa loo gudbiyay aqalka sare already Democratic Republic isku raacsan yihiin in barnaamijka paycheck protection program la ansixiyo oo extension lagu daro maadaama $100 milyan ee meel iska taalo cid claim gareysana la leeyahay fadlan hadii aad qaadatid iskaajosi 1099 lacag ayaa ku taalo hadii tusaale ahaan grosskaaga uu yahay lacagtaas uu bisla 20000 4000 ayaad helaysaa waa hadii SBA ku approve gareyso hadaad suu bisid 40000 waxa helaysaa mataqaanaa 8000 hadaad suu bisid 100000 waxa helaysaa 20000 waa loan forgiveness waa deen cafis waa lacag akoonti ku taalo waa lacag la cafin doono oo loo baahan yahay 60% in aad cuntid 40% in expense ka dhigatid sidaan hore idinku sheegay looma baahna business name ina leedahay ma loo baahna adoo taxi wado taxiga gaariga ka shaqeysto ama Uber wado ayaa xareysan karo lacagtan xaqaad u leedahay waa helaysaa fadlan ka faa'iideysta barnaamijka paycheck protection program waxaan idinkaga tagayaa anigoo maxamed faarax maalin